inagu waxaynu nimid dhul dhisan oo dawladi ka jirto oo system leh oo nidaam waxbarasho leh oo falsafo nololeed leh oo qaanuun leh oo iclaam leh oo shaqaynaya waxaanaynu nimid inagoo kala daadsan oo kala firirsan oo aan wada soconnin waan mustaqbalkana aragti ka lahayn qof waliba meeluu dabada dhigo iyo meeluu nabad ka helo hadday ka badatana wax la cunayo xoogsi uu ka helo ayuu raadcaynayay inta badanna bini aadamku mushkiladda uu yaqaanaa buu xalka u raadiyaa mushkiladda uu yaqaano ayuu xal u raadiyaa mashaakilkeenu halkan ugu nimi maaha mashaakil xaggeennii ka jiray xaggeennii mashaakil nooc kalea baa ka jiray xaggeennii cid ilaahay diidani ma joogin laakiin cid yara faasiqowda waa joogtay ilaahay lama dafiri jiray laakiin qof dadka dilaa waa joogay xaggeennii qof been sheegaa waa joogay yacni dunuubta xaggaa taalla iyo ta xaggan taalla waa kala nooc mashaakilkaad markaad xaggaa joogtay ka fakaraysa iyo kaad halka ka fakaraysa waa kala nooc inteenna ugu badani waxaynu xal u raadinaynay nabad cabsi badan baa taallay nabad iyo xoogsi shaqalaan labadaa inaynu ka baxno wuxuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam inna rabbaka la yacjab lishaabi laa sabwata lah ilaahay waa la yaabaa nin dhallinyaro ah oo aan weecad lahayn quman saas awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wiil dhallinyaro ah oo reerkoodii ka tegey laga kaxeeyey oo la iibsaday oo addoon laga dhigtay oo guri boqortooyo jooga oo boqoraddii hunguraysay boqorkuu tuuqabay hunguraysay oo diidan way isku dayday inay xoog ku kafsato waqallaqat ilabwaaba wa qaalat hayta lak wax walba intay u hagaajisay tidhi soo dhowow oo ku yidhi macaad allah ilaahay baan ka magan galay oo markuu diiday ay istidhi kufso oo u cararay oo orodkii albaabka uu kula kulmay ninkeedii oo saa kaga baxsaday oo ay haddana khidad kala degtay oo ay leedahay lain lam yafcal maa aamuruh waxa aan ka rabo hadduu samayn waayo layusjanan walayakuunanna min asaakhiriin waa la xidhi doonaa kuwa dullooba buu ka mid noqon doonaa oo ilaahay baryayo le rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahu aniga agtayda xabsigaa lagaga kalgacayl badan yahay waxay igu yeedhayaan yacni muctaqadkiisaa dhisnaa ilaahay cabsidiisaa ku beerayd saa daraaddeed buu xabsi ka dooranayaa inuu sinaysto waa mansilo sarraysa ilaahay qur-aanka markaas ku leeyahy waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli ha dhowrsanaadaan dhallinyarada wixii aan helaynini waxay ku guursadaan waxay leenahay qofku markuu caqiidadu dhisanto ee akhlaaqiyaadka lagu tareengareeyo markaasuu dhismaya qof jira noqonaya qof jira markuu noqdo wixiisu ku faanaya markaa waa muctazun bidiini hadda waxaa laga yaabaa xataa hadduu salaada tukanayo ama caynka samaynayo isagoo la khajilsan inuu tukado ama qarsanaya su-aalaha yurubna la weydiiye waxaa ka mid ah sheekh musqusha ma lagu tukan karaa oo maxaa salaad iyo masquul isku keenay yacni waa nin diintiisii la qarsanayo khajilsanoo isla meel aad ku dhuumato aan ciddo ku arag marka aad foorarsanayso wax bini aadamaysa aanu ku arag meel gaara oo aan dad ku arag yacni waa muctaz baanu ahayn diintasaanu kalsoonidii naf ahaan buu u jabay in badan dadku waxay maqlaan anoo ka sheekaynaya nukadka gaandi laga sheego waa nugta ma aha xataa qoraal iyadoo ammaan arag waa nugta lay sheegay waxay yidhahdaan mahatma gaandi ninkii la odhan jiray nin qaanuunyahan oo filosofa oo falsafada basifismka la yidhahdo dunida ku faafiyey in nabad wax lagu raadsado oo la dagaalamin oo indiya xorriyaddeeda uu soo dagaalamay buu ahaa uu soo halgamay marka wuxuu rumaysnaa diintiisii buu haystay hinduusamkiisii iyo wixiisii hinduusku waxay qaataan laba goo cadcad mid xagga sare laga hoodo iyo mid inta halkan la duuduubo dabada la geliyo xagga dambe la geliyo markaa nin wastrankana bay kulmeen ul yar iyo labadaasuu qaadan jiray waana feedha qaawara aqoon ahaan waa nin loo yaroo la garanayo macruufa bulsho dhan hogaamiya laakiin kaljarkiisuu ilaashanayay nin ingiriis baa wuxuu ku yidhi bay yidhaahdeen
oo taay xidhan ayaa ku yidhi what's this maradan yaree dabageliska oo dabada ugu jirta wuxuu waxaad dabada gashatay waa maxay kama waalinaysna su'aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi what's this halka yaree halkan ku xidhnaa taay this is necktie buu yidhi kani waa qoor ku xidh and this is back tie buu isna yidhi يعني مرة ننا قارت صدّي ننا دبادو صدّي وأنا مرة يعني وحوينو ليس محا أنا جم مرة ده إذا كدي ويان وحلي سويدية هذا أنا كدي وحلا قبله أتبى مرة أنت قارت كل حد إلا لاتستي أنا متبان دبادك الشذي مركا محا أنا جم مرة ده إذا سؤال قلي يعني إنك أنا وحكو فانا يا ومعتز كالجر كيسة دقن كيسة كفانا يا دون ما هاد دقن ما وحكو كلا سرية مشاكل كينا هيستوى حكم ده wixii laynagaga hormaray maynan raadcayne waxaan lagu hormarin baynu raadcaynaynaa firsarega dunidu aqoon bay ku hormartay science iyo waxbarasho kamaynan raadcayne wax kale aynu raadcaynaynaa dunidu ma dhafar xiriir iyo istaawin iyo marada la daldalooliyo iyo khabar la cabam yaa lagu hormaray wadan binaadam oo ku hormaray miyana qashay this is a culture of a people أما هو نكسنا هذا ما حماده ودغن دد سمايستي أولي لكن ما ها أقوى ما ها وحلا سوفان وهي هيدين وحين نقفان مرة نين نقفان دغن كين نين نقفان دد نمدين نين نقفان إذا وحين لنا هاي قف مركو عقيدة دا إيه دغن كهله إيه أخلاقيات كاي values كمركو آمنة با وحي كان سنسا هيك صدق حدا كو جبجبين يا وحويان مشكلة الفقر مشكلة وحلا أنا أجرته وينو نمي قحونتينو ني دد مدو بينو ني شقدaynu helna waa shaqooyinka dadka ugu hooseeya carruur badanna waa dhalay idan dhaqaalaheenu wuu hooseynaya standard of life keenu wuu hooseynaya waayo familigeenu wuu ka badan yahay familiga kale dhaqaalahayna soo galaana waa ka yaryihiin maxay dhaqaalaha kale raadeen wuu samaynaya laakiin waxaynu u baahannahay inaynu dadkeenna barro علمه كيف يصطاد بيننا مسكين كوحون لما سيئه سيدو وقعد صدابا لبراه إنه أركتبه إنه كلامي مودنا ده إنه وراني سقف وأما إلا جامعاتها صعدة أما وحقول الله أنا إسكا هذا دوني دنا شقد أقول بدني بني آدم قبضة وحرفت دتكنا وضع أي كيوغود ما وضع سرية ما وضع هذا جامعات كوضع بحي كرا جامعات كوضع بحينا شقة ما وضع هلي كرا وحمهم كا إنه نبرنه حرفتها وضع كيالا وضدكم المها قد دادر كيسينو سي جريد بدي جريد أما وحكو دو تشوغو حد جامعات كي يقول لقويني سامي كسير دعومات ربطها أو دوتنا دروقة يبيو وحكرون إنه حرفة وريتشسو إنه كمبيوتر برتو إنه قصبة برتو إنه قواعد الصالة السماية برتو إنه إلكترونيات حرفة وكحوك سنكرو علمه كيف يصطاد وإنه برقف كان سيدو وحو نقو كرو إنه وحين ما وحو ويانا مجامع نقو أما سوق شوق نقو حمال نقو حرفة قرأ إنه قررنا وحو ويان سومالو دالما حرفة ضد ما يدوني دالو وريكتا ميدوا دروالنمو دوني دا مالك استاذ شوكتو سومالو حرفة كوادا ويقانا ودروالنمو تاكسي كحي بس كحي كان كحي ودروالنمو حرفة اللبادة إنه نقانينا وحا هي تريد وحيبين تيادو يوروب كما سعوتها وشركات وين باعونا هايستا دار هايستا وحبا ما يبين كرنو وحيبين تينا يوروب حيكو سارورتي من قاحية يميل يرو مدو وما دكان يرو درع دمري بيو إنكم بوحسكي منا يجوا وحبا كما يبينو كنت كأني سواق حبيبا وحكا ليبسنا إذن حرفة قرأ يروغو سوهر ديوان محي ودرايفنج marka dadkeenoo dhan ma taksiilaynu tababaraa iyo xamaal maya waynaynu tijaabinaa wadkeenna intuu odhan lahaa aabahina darawalba ahaana darawal baa noqday inaynu farsamo darawalnimada ka fiican barro maxay callimu kayfa yastaata waa xirafkan waddanka yaalla ee farsameed haddii aynu jaamacad ilmaa ka bixin kari weyno ama awoodi kari weyno ama ribanimadeeda diidnay ama kan diidnay duruqyo badan oo kaloo loo wareega baa jira inaynu barro siday wax u baran lahaayeen isla markaana waxay keensanaysaa labaadna hadduu diin iyo caqiide iyo dhaqan fiican helo wuxuu baranayaa in la xishoodo oo aan wax la xadin oo aan xashishad la iibin oo aan suuqa xun la gelin ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa dad muslimiin oo fuqaraa yaxsabuhum aljaahilu aghniyaa'a min at-ta'affuf ba ilaahay
dadka aan xaalkooda ka warhaynin dad waxaystay moodayeen dhowrsanidooda daraaddeed hadduu ilmaheennu intaynu wada korin kari weynay wax wada bari kari weynay dhowrsanidaan barro youtube noqonin bulshada ku soo kordha ama droogista bulshada ku soo kordha ama kan ku soo kordha yuu noqonin ama waa inuu barraa sidii uu u ugaadhsan kari lahaa isla markaana waa inaynu barraa inuu noqdo qof dhowrsanaan kara sala allahu calaa maxamed wacala